بركة إلهي نحريستي سكبوسا مينو ورحمتي وسعت كل شيء تتكهنو ويدا نحريست إلهي ظلوم باتاي ظلوم ظلمي جيستي مد ظلمي جيسو بدنياي مركلي ما واحد ظلمي سمينينو مرر بدن بان ظلمي جيسانينا الله إن أبو ريبان ظلمني ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام حق سيبان ظلمني وحقوق دي والد كل هيد من ملك قد عني وحق قرابتنا وانكو قفني وحق ريريهن يعرورتنا وانكو قفني وحق جاركنا وانكو قفني مر والبا وحانا كو قفيا بانهي مركا ادغو وحاتا مد ظلمي جيست بدن oo kafaara oo ilaahay nicmadu ku siiyayna qariyay oo daboolay baa tahay aayadaasi xagga hore waa sida xagga dambana waa sida aayada ku taala fi suurati an-nahl ilaahay wakilaha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim haddaad ilaahay nicmadiisa aad isku daydaan inaad tira ku soo koobtaan baa ilaahay yiri ma soo koobi karaysaan ilaahay rabbigiinuna waxa weeyaan waa mid dhaafid badan oo naxariis badan baa la yiri rabbigiinu waa mid dhaafid badan dambi kastood gashaan haddaad ka soo noqotaan dambigiina ilaahay uu dhaafayaa waa mid naxariis badanoo si kastoo naxariistiisa uga quusataan ilaahay jalla wa ala waa idin naxariisanaya waxaad ogaataa addoonkan oo weeyaan macnuhu haddaad adigu aad tahay kii dulmi geystaha badnaa kii daalimka ahaa ee kafuurka ahaa haddaad adigu aad tahay ha quusan buu ilaahay ku leeyahay anigoo rabbigaagiya waxaan ahay غفور رحيم بانهي مد دافد بدن ونحريس بدن بانهي إيسو نغبا إلهي كلية يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة حديث القدس با إلهي كليها إن آذنو مربع داد أدقو أنيق آدي بريسو أودي رجينيسد أود وجه دولك إيديسد أودي بريسد دنبقى دونتد إنت دنبقى آدقش إنتو دونا بحالك هذا وانكو دافيا با إلهي عد أنواع بيالا يونغ جوسن يعني مجرت با إلهي عد أورانيسا يا ربي addoonkan waa dambiile maxaa dambigiisa u dhaaftay oranaysa ma jirto haddaad marba adigu aad muslim tahay oo muumin aad tahay oo ilaahay keligii aad baryaysid keligiina aad rajaynaysid dambiga ka dhaca intuu doonay hal leekaade haddaad ka soo noqoto dambiga oo shuruudii toobada laga helo ilaahay waxa ku leeyahay dambiga waan dhaafayaa law balaqat dhunubuka anana as-samaa haddii dambigaagu uu gaadho fadka samada oo istighfar adiga dalabto waa dhaafi ba ilaahay ku yiri law ataytani malika qiyaamaha arlada muggeedo gafa adigoo wata hadaad ii timaado laakiin bishardi aad iigu timaado adoo ii soo shariik yeelin gafka aad la timid in la ego dambi dhaafa kula iman ba ilaahay ku yiri shardi waa maxay waa inaad tahay shakhsi muwahhid oo ilaahay rumaysan barka ilaahay naxariistiisa ka quusan mayno wa rahmati wasi'at كل شيء تتكهنو ويدا نحريست إلهي إمام الشافعي رحمه الله أيا أركنين مال فرديو آدو مرويسن مركابو أوتوغو أولا فرديستن ننكي أو وريستن مركابو حيوري وما حيدي باتاد عديقا كواهيستا مروك باكام وقاته مصيبة يقول عدي بودنين مصيبة يقول عدي بانا هاي بودون دي بسنة wuxuu dadkaba masiibadu way ku dhacday waa maxay adiga ku gaarkii wuxuu aniga tu gaar ay ugu dhacdo haysato dadka kale waan ka duwanahay buuri masiibada maxay tahay adiga ku gaarkii wuxuu dadkii iyo aniga ayaa kala baxnay buuri oo cid aan la heshiisahay ma jirto hooyaday aabahay waan kala dhaqaaqnay reerkeygii oo ilmahayga waan kala dhaqaaqnay jaarkeygii waan kala dhaqaaqnay qaraabadaydii waan kala dhaqaaqnay cid aan la heshiisahay haba yaraatee ma jirta buu ku yiri marka culimadu firaasa wax la yiraahdo lahaayeen ittaqu firasata almu'min fa innahu yara bi nuuri illahi bu nabigu alayhi salatu wasalaam qofka mu'minku wuxuu leeyahay nuur qalbigiisa uu wax ku arku leeyahay iska ilaaliya bu nabigu alayhi salatu wasalaam imaamkii wuxuu gartay ninkani in xagga ilaahay isaga xiriir uu ka go'an yahay buu gartay
hal su'aalu markaa weydiiyey uu mashkiladiisii oo dhan ku xalliyey waa maxay su'aashaasi wuxuu ku yidhi waryaa i dhegayso 100 qof inaad hal mar raalli gelisaa iyo qof kaliya inaad raalli gelisaa bal kala dooro kala sheeg markaasuu ku yidhi midka kaliya ila fudud waxaa markaa baa lagu yidhi waliba midka kaliya hadduu adiga raalli kaa noqdo ood isaga raalli gelisid 100ka kale isaga ka raalli gelin baa lagu yidhi markaasuu midkaasi waa midkee buu yidhi markaasuu waa Allah weeyaan markaasuu ninkii wuxuu yidhi sheekh wallaahi meesha leega haysta adii sheegtay buu ku yidhi nolosha aan fahmi lahaa iyo cidhiidhiga aan dareemayay iyo muqaatacada dadku ay igooyeen oo dhan waxa u sababa waad ii tilmaamtee aniga iyo rabbiga xidhiidhkii naga dhaxeeyay baa meesha jirin buu yidhi jazaakallahu khayr buu markaa halkii buu ninka ku toobad keenay haddaan doonayna inaan ka baxno dulliga iyo ciriiriga iyo dawarsiga waad ogtihiin dadkeennu dawarsi bay ku jiraan maanta Soomaali haddaan dad adiga dadnimadaada ka hooseeya maanta wax ku yeedhinaya oo ku maamulaya oo ku talinaya waana min calaamaati saaca nabigeena sheegay sallallahu alayhi wasallam idha tukhudha al-fay'u duwala wal amanatu maghnama wal zakatu maghrama wa tu'allima li ghayri ad-din wa ata'a ar-rajulu imra'atahu wa 'aqqa ummuhu wa aqsa abahu وأدنى صديقه وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقهم إلى آخر الحديث شان يتبخص لضد نبي حديثك أو كشيء ويرى أمضى إذا شان يتبنك على ممركات كأركتان بلا يدا أمضى إذا كنت عليه وقاد أبو النبي عليه الصلاة والسلام إن يربان كتابا إن كسو وقت نقوك وبينهي وحاو نبي قول الدول وحال إلى ذا وحنتد قود أمضى إلى هي dad gaara markay danahooga u isticmaalaan kii amaana loo dhiibtayna amaanada dad u dhiibtay inuu markaa qaniimo u timid intuu iska arko iska isticmaalo kii zakada dhiibayayna sida deyn lagu leeyahay markuu zakada u dhiibo waxaan diinahayna dadku markay bartaan waxa uu nabigu sheegu yiri iyo marka uu ninku haweenaydiisa u adeeco hooyadiisii dhashayna uu iska dheerayo caaq ku noqdo waalidinkaar uu ku noqdo xaaskiisana uu dhagan nuglaan hadalkeega iyo amarkeega hooyadiisii dhashayna maaragtaan ay dhaaf buu oranayaa aabihiisii dhalena uu iska dheerayn buu nabigu yidhi saaxiibkiisana uu soo dhoweyn wa kaana zaciima alqawmi ardhaluhum qowm walba markuu hoggaanka u qabto kooga ugu liita buu nabigu yidhi ugu liita wasaada alqabiilata faasiquhum qabiil qowm waa dadka af keliya ku wada hadla wamaa arsalnaa min rasuulin إلا باللسان قومه إلهي بالقرآن كأنه أقول شيء قوم معناه وحويان وعدتك اللغة كلية كوضا الله وقوم قوم والبمركوه قام يبو نبي يقول ليتا وكان وساد القبيلة فاسقهم قبيل كنا ويركي ويان وجفدي هوسي أيكون مركي تلادة أوديبتان كوغا إلهي كفوق بلا عبادة بلا تقوى وحاصر دنبو نبي الشيء نوتريي ومن علامات الساعة أبو النبي عليه الصلاة والسلام أمد عريريغا يدلغا يدورس كما بحيسو إلا إلهي أصو نقطة مويانا عمل كينا بدلينا نولشنا إلهي سقا بدلي مركز وعقوبة عابة مسلمين تونان هاي ستمانت عقوبة عامة ويان ومسلمين تعامهان ودن كل عضو كوهب ستي مركي كتابك إلهي جل وعلا لقد تقي سنة النبي محمد لقد تقي أي عقوبة دا سنقود عدين مانت وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورحض النبي محمد يريبا إلهي نوغشك في سورة الفرقان إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب قوم كيجي وريرك النبي محمد وكرد شيء ويا قوم جيس وعرب وحي كيشن كتابك إلهي جاس رقم كيسيبه كهجرودين برشدي سيبه كهجرودين اسكو حكم كيسيبه كهجرودين كشقين تسيبه كهجرودين
kii quraanka baranayna waa wada aad bay yiraahdeen macallinkii ilmaha quraanka u dhigayayna waxa lagu yiri macallin ciyaalka maxaad bartaa adu quraan yar uun baad bartaaye waa hooyo ardaygii markuu bisha lacagtii uu dhiibi waayay madrasada ayuu macallinkii dhowr jeer buu celiyay markaas islaantii aad u cadhaysan baa soo qabatay ilmahayga gacanta u timid macallinkii macallin ilmaha yar waad soo celcelisay maxaa u soo celcelinaysaa maxaa ka qaldan markaas waxba igama qaldano lacagta ha bixiyo meeshan aan ku jiro waa kira weeyaan laydhkani waa lacag weeyaan macallinkani waa dad reer uu ka mas'uuliya dhagax iyo geed maaha wuxuu reerkiisa siiyuu rabaa markaa bay ku tiri macallin waaba isxariifinaysaa maxaad u dhigtaa bay tiri quraan yar baad u dhigtaaye quraan yar adi waa kula yar yahay quraanku laakiin u fiirso xadiiska nabigeena kaleey salaatu wasalaam al-maahiru bil quraan ma'a safarati al-kiram al-barara ardayga ama ninka sheekha ama gabadha saalixada ee quraanka taqaana ee xuquuqdiisa iyo xuruuftiisa ilaalinaysa ku baratay ku xafiday maalinka qiyaamaha bini aadanka la soo bixi mayso waxa uu nabigu sheegay malaa'ikta inuu qofkaasi la soo bixi doono malaa'ikta quraanka u qaabilsan ee quraanka xafidsan ee cibaadada ilaahay ay ugu dhawaadaan ay tahay quraan ay qofka quraanka yaqaan uu la soo bixi doona marka ihaanada maanta muslimiinta caam ahaan haysata inaka halka isdhignay kaliya waxa la rabaa in umada laga helo tawba inaan ilaahay u soo noqono toobad keeno bani aadam baan naho dambi way naga dhacaya laakiin ha quusan oo raxmadda ilaahay ha ka quusan haddaad adigu aad tahay ilaahay baa fi suurati ibraahim baa ilaahay ku yidhi wa aataakum min kulli ma sa'altumuuhu wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha inna al-insana la dhalumun kaffar wa fi suurati ibraahim baa lagu sheegay fi suurati an-nahl ilaahay waxa uu ku sheegay wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha wa inna allaha la ghafurur rahim sida ina aayadu ahayd baan jecelahay waa laba aayadood xaggeedu hore aayaduhu waa isku macno weeyaan laakiin xagga dambe labada aayadood macno kala duwan bay sheegayaan aayada suuratu ibraahim baan horta isdul taagiyo ilaahay baa yidhi wa aataakum min kulli ma sa'altumuhu wixii aad weydiisateen in niyada ku qabateen ee jeclaydeen ee naftiinu ay doonaysay ama carabka ka sheegto ininku garta oo ilaahowna sii dhahada ama ilaahayni abuuray baa inni yaqaana waxay nin wanaagsane ilaahay waa inni siiyey wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha haddaad isku daydaan ilaahay nicmadiisa tira inaad ku soo koobtaana ma koobi karaysaan baa ilaahay yidhi inna al-insana la dhalumun kaffar insaanku waa mid dulmi geysta badan kaffar weeyaan waliba waa mid nicmada ilaahay inkiray oo nicmada ilaahay qariyay dhaluum baa tahay dhaluum dulmi geyste mid dulmigiisu badan yahay mar kaliya ma waxa dulmi samaynayno marar badan baan dulmi geysanaynaa allahiina abuuray baan dulminay oo nabigeena muxamed kaleey salaatu wasalaam xaqiisii baan dulminay oo xuquuqdii waalidku lahayd baan meel kaga dhacnay oo xaqii qaraabadeena waan ku gafnay oo xaqii reeraheena iyo carruurteena waan ku gafnay oo xaqii jaarkeena waan ku gafnay mar walba waxaana kuwa gafaya baan nahay marka adigu waxaa tahay mid dulmi geysta badan oo kafaara oo ilaahay nicmadu ku siiyeyna qariyay oo daboolay baa tahay aayadaasi xagga hore waa sida xagga dambana waa sida aayada ku taala fi suurati an-nahl ilaahay wakiilaha wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha inna allaha la ghafurur rahim haddaad ilaahay nicmadiisa aad isku daydaan inaad tira ku soo koobtaan baa ilaahay yidhi ma soo koobi karaysaan ilaahay rabbigiinnuna waxa weeyaan waa mid dhaafid badan oo naxariis badan baa la yidhi rabbigiinnu waa mid dhaafid badan dembi kastood gashaan haddaad ka soo noqotaan dembigiinna ilaahay wuu dhaafayaa waa mid naxariis badanoo si kastood naxariistiisa uga quusataan ilaahay jalla wacala waa iniin naxariisanaya waxaad ogaataa addoonkanoo weeyaan macnuhu haddaad adigu aad tahay kii dulmi geystaha badnaa kii daalimka ahaa ee kafuurka ahaa haddaad adigu aad tahay ha quusan buu ilaahay ku leeyahay anigoo rabbigaagiya waxaan ahay ghafuurun raxiim baan ahay mid dhaafid badan oo naxariis badan baan ahay ii soo noqo baa ilaahay ku leeyahay يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة حديث القدس با إلهي كليه إن آدنو مربح داد أدقو أنيق آدي بريسو أودي رجينيسد أود وجهك دولك إيديكيسد أودي بريسد دنبغا دونتد إن دنبغا آد قشا إنتو دونا بحالة كاده وانكو دافيا با إلهي عد أنواع بيالا نوغ جوسن يعني مجرت با إلهي عد أورانيسا يا ربي أدون كان واد دنبيلا محاد دنبغيسا أودافت أورانيسا مجرتو هذا مربع أدقو آد مسلم تهي أود مؤمن آد تهي وإلهي كليجي آد بريسد كليجي آد رجينيسد دنبغا كادا إنتو دوني هالله كاده هداد كسو نقوت دنبغا أو شروط التوبة لغا هلو إلهي وحاو كليه دنبغا وان دافيا لو بلغت ذنوبك عنان السماء هدي دنبغا وقاد فتك السماء أو استغفار أدي قد طلبته وان دافي با إلهي كيوري لو أتيتني مالك قيامها أرلد مجد وقفة أدقو وتهداد إيتمادو لكن بالشرط أدي قلت ماذا أدو إيسو شريك يلين قفك أعلت مدى إلا أقو دم دافع كولاي من با إلهي كيوري شرط ومحي وين أتاي شخص موحد إلهي الرميسن بركة إله النحريستي سكبو سنمينو ورحمتي وسعت كل شيء تتكهنو ويد النحريستي إلهي حديث كوي الله صحيحين نبينا عليه الصلاة والسلام وحل الناس وقبنا يا أمته نقهر يقفك أي قلين إلهي نحريستي وسعد إذا يسوي نبيه النوت المامية أيو نبيه النوغو الشيقي نجي ريبني إسرائيل هاي بقول كنف قويي أي ويديه دتك كويري ور عالم نين عالم أيت الماما مركاسا نين عالم مركي دم الله تلمامي نكي عالم كا أيو يمدوه كويري تايب بانا هاي بقول نفنا وان قبادي قوديه توبد ميان الله ها توبد والله ده هاي بو كويري توبد والله ده هاي لكن شروط بكو حدا وحا وكويري شروط دا سوا شرع لمن قبلنا بعلماء ولادين وحا شروط دا كمدة توبة دا إن لغا أقبلو ماشانا جوگتو وميل دد حنبا كنول او دقال بدن او دب بدن او دد ديك دادية كب بدن ايا كنولي كدح بحبوري دد كان يبدال كان كقور حقيدو قوريسا دولكاس دد وناكسن با كنول دد كا إلهي الله سو عابد بكويري meel dad wanaagsan ku nool yihiin tag oo irtixaalay markaa ninkii safarkii buu guda galay isagoo wali meeshii uu socdo u hijroonaya aanan gaadhin ayay geeridiisii timiday naftii markay ka dhacday malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul raxma isku qabatay malaa'ikatul raxma waxay leeyihiin addoonkan uu toobad keenayo ruuxdiisa annaka qabanayno qaadayna bay leeyihiin malaa'ikatul cadaabna waxay leeyihiin may addoonkan boqol naf buu qabaa waa dhagar qabe weeyaan cadaab baa loo qaadayaa ya keena markaasaa ilaahay soo diray malag suurad aadamiya loo soo yeelo lagu yidhi arlada dembiga uu ku galay iyo arladuu rabay inuu u hijroodo mitiri baa lagu yidhi u mitiri taw xaggeega u bata dadkeega ku dara baa lagu yidhi مركز إلهي تبارك وتعالى وعزيز وكريم ورحيم والرحمن في بعض الروايات وحو نبي شيء قلكو السعودي با إلهي وحي ودو كيري أدوان كيغا النار إنو يقال مجع لي أدوو با إلهي كل أدوو انت إلاك با ديراتي والنبي قول الشبر لأن ملايكتي إن حريست الله ورقتو صداسو أدوان كي إن حريست إلهي كو مطيستي حديث كاس وحاو النبي يقول إنه وشيء عليه الصلاة والسلام ومحي هقوسن وين حريست له هكقوسن صنقوا إن تابوا إلي فأنا حبيبهم أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب والمعائب لأظهرهم من الذنوب والمعائب إلهي بحديث القدس وحو كيري هدي الضومه يقول أنا إيسو نقدانا كسو نقدا كي جعل بانا هيبا إلهي يدي كوا استهيريا يا طهارة قادنيا يا ذنوب تسكن ميديا يا كوا إلهي أصور نقدا دنبك كتوبت كيني
labadaaba waan jecelahay baa ilaahay yidhi fain lam yatuubuu ilaya hadday aniga addoommahaygu ii soo noqoni waayaan oo ay toobad keeni waayaanna hee fa ana tabiibuhum ma daynaye waan dawaysanayaa buu ilaahay yidhi addoonkayga oo maxaan ku dawaysan balaayo iyo masiibo ayaan ku keenayaa si dunuubta iyo macaayibta iyo nuqsaantooda aan uga maydho ay u gartaan rabbi inay leeyihiin deedna u soo noqdaan baan u keeni balaayo baa ilaahay yidhi dalka innagu aan ka soo jeedno haddaan Soomaali nahay waxaad ogtihiin 5tii sanaba masiibo magac kala huwan baa soo maraysa hadda maalmaha ay dhaweyto daadad baa qaaday ummado dhan oo dal dhan baabiyey oo beero dhan baabiyey oo intaasoo bashar ay ku dhimatay oo intaasoo xoolana ay ku halaagsameen masiibo 5tii sanaba masiibo magac kala la huwiyey ayaa ilaahay nagu soo diraya waa maxay waxa ubtalihim bil masaa'ib ilaahay baa inagu leh adoomahayga waan jecelahayo maadaama boqol muslimiin yihiin oo muwaxidiin ay yihiin waxaan balaayadii masiibada ugu keenayaa wax kale ma aha dambigay galeen baan rabaa inay ka soo noqdaan baa ilaahay leeyahay laakiin dadkeenu weli ma toobad keenin inaan toobad keenin waxa uu daliila masiibadii waddanku ku burburay ilaa imika dhamacdeedii way taallaa qaarna way hurinayaan oo waxay ka huriyaan inta badan waxaan la yidhahdaa social media-ga ka hurinayaan waxyaabaha aan doonayna inaan ka toobadkeena qabyaaladda ka mid ah haddaan qabyaaladda ka toobadkeenno albaaba badan oo inagu furan oo cuquba ayaa ilaahay naga daboolayaa waa inaan ka kacna qabyaaladda kor uga baxnaa oon u baxnaa alislaamiya annagu muslimiin baan nahay ilaahay dad muslimiin uu naga dhigay dal boqolkiiba boqol muslim ilaahay nagu abuuray dal boqolkiiba boqol dadka ku nool isku madhab yihiin baa ilaahay nagu abuuray dad qoys kaliya ilaahay naga dhigay waa inaan toobadkeena ummadda aan ugu yeedhnaa waa inaan ummadda toobadda ugu yeedhnaa at-tawba nabi huud calayhi salaam oo mucaad baa loo diray reecaad waa qoomkee bay haayeen waa qoomkii yidhi man ashaddu minna quwwa ayaa naga xoog badan bay yidhahdeen qowm mucaad ayaa naga xoog badan ilaahay quwad buu siiyey qoomka quwad ilmahooga 5 jirkaa bay culimmadu yidhaahdeen 5 jirka ayaa dooga biqlay tagaadda sida ilmaheennu u rujiyo ugu ciyaaro ayaa geedka timirta ilmahooga 5 jirka intuu u qaado sida u tuuri jiray baa la yidhi hadduu ilmahooga 5 jirku intaan la ekaa kooga 30 jirku markaa intee buu la ekaa wayaddacuuna alquwa wayaquuluun man ashaddu minna quwwa ayaa annaka naga xoog badan bay leeyihiin ayaa naga xoog weyn walaakiin nabi huud calayhi salaam markuu u yimiday wuxuu ku yidhi wayaa qowm istaghfiruu rabbakum thumma tuubuu ilayhi yursil as-samaa'a calaykum midraara wayazidkum quwwatan ilaa quwwatikum walaa tatawallaw mujrimiin wayaa qowmi tolkayo waliba qabiil reerkiisa isagana loo diray qoomkiisa loo diray markaasuu ku yidhi istaghfiruu rabbakum rabbigiina dambi dhaaf weydiista thumma tuubuu ilayhi dambigaad ku jirtaana ka dhex baxa oo xagga rabbigiina u soo noqda haddaad ilaahay labadaas sifo haddaad ilaahay ula soo noqotaan haddaad istighfaar la timaadaan gaalnimadana aad ka soo dhex baxdaan dunuubta waa weyn dembiga ugu weyn waxa weyn al-ishraaku billaah waa ilaahay oo loo shariik yeelo gaalnimada aad ku jirtaan iyo wixii gaalnimadu ay wadato dhanna ka soo dhex baxa oo toobad keena maxaad markaa helaysaan yursil as-samaa'a calaykum midraara ilaahay samada wuxuu iniga keenayaa roob dhibiciya waaweyn baa samada layniiga keeni dhulkana barakaad iniiga soo saaraya ma intaa keliya may wayazidkum quwwatan ilaa quwwatikum awoodda aad sheeganaysaana layniga qaadi maayo diinta islaamku waxba kaa qaadi mayso waxay kugu darta mooyaane islaamnimadu waxaad adigu haysatid way ku kordhin quwaddii jirka haddaad haysataan quwaddii caqliga layniigu dari quwadda cilmiga layniigu dari quwadda caafimaadka layniigu dari quwadda maaragtaane baraka cimrigiina laynii gelin quwaddii iimaaniga iyo caqiidada ilaahay niigu dari quwadda aad sheeganaysaan diinta islaamku inagama naaqusayso inagama dhibayso bal quwadda quwad kalay diinta islaamku iniigu daraysaa islaamnimada dad badan baa maanta ka baqaya ha ka biqin diinta islaamka
waxay kuu kordhisa mooyaane waxba kaa dhimi mayso. ayna barbaarinayay ayna arsaaqayay baahidiina daboolayay arwaaxdu iyadoo aanan kala hadhin ayay isu raacdo waxay tiri qaaluu balaa hahay bay yidhahdeen dhammaan adaa noo rabbiya adigaa noo macbuuda adiga unbaa noo ilaaha xaajaadka aan qabno ciddaan ula iilalaynaa waa adiga weeyaan barya haddaan leenahay ciddaan baryaynaana waa adiga tadaruc iyo tadallul iyo cibaado hadday noqotona ciddaan caabudaynaa waa adiga ballankaasay basharku ay soo galeen inay ilaahay keligii caabudaan in ilaahay keligii ay ka amar qaataan in ilaahay caza wajalla keligii ay baahidooda u sheegtaan in ilaahay caza wajalla keligii ay ka cabsadaan ballankaasay basharkoo dhan soo galeen laakiin adduunkan markii la yimiday ee laynagu abuuray duriyatan bacduhaa min bacd inna way imanaysaa inna way ka baxaysaa adduunka fii kulli yowm maalin walba 800 oo kun oo basharana way dhalataa 650 kun oo bani aadanana adduunka way ka baxaan baa la yidhi inay bani aadanku ay kala socdaan oo adduunka ay isku babadilaana waa sunnada ilaahay waana xikmadda ilaahay inay ina dhalato ina dhimato waa ilaahay xikmaddiisa inay ina maaragtaanay masaakiin ahaato ina aghniya ahaato waa xikmaddiisa inay gaalo noqoto ina muslimiin ay noqotona waa xikmaddiisa ina maaragtaana in la baraarujiyo ina maaragtaana ay wax baraarujiyaanna waa xikmaddiisa inay noqoto lab ina dhidig ay noqotona waa xikmaddiisa ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين بإلهي ومن كل شيء سكدا بشر كوكليه مخلوق ودن بإلهي وكدغ لبا عينادود كليلك قبوبا ayaa ka soo horjeeda maalinta habeenka ayaa ka soo horjeeda daraarta maaragtaanay dayaxa cadcadda ayaa ka soo horjeeda abaarta barwaaqada ayaa ka soo horjeeda dhalashadana dhimashada ayaa ka soo horjeeda labkana dhidiga ayaa ka soo horjeeda faqiirkana qaniga ayaa ka soo horjeeda gaalkana muslimka ayaa ka soo horjeeda waa ilaahay caza wajalla xikmaddiisa weeyaan dad hal caynad oo hal nooca haddii adduunyada lagu abuuri lahaa adduunku qiimo ma yeelanayo basharka oo dhan haddii laga dhigi lahaa rag keliya adduunka maaragtaana isma buuxinayaan haddii haween keliya laga dhigi lahaana haweenku keliyana isma buuxinayaan oo baahidooda isma daboolayaan haddii dadka adduunyada ku nool wada maalqabeeno laga dhigi lahaayo fuqarada iyo wixii faqiiraba adduunka laga zuulin lahaana xikmadda ilaahay adduunka ugu talagalay ma muuqateen dadka adduunyada ku nool hadday wada muslimiin ay noqon lahaayeen iyadana xikmad baa maqan hadday wada gaalan wada muslim ay noqdaan wada mu'miniin dee nebiyana koonka ma yimaadeen qur'aanna lama soo dejiyeen lamana aadaameen ducaad iyo dacwad iyo dadaal diineedna looma baahdeenba marka ilaahay xikmaddiisa waxaa ka mid a maaragtaana inuu qolo walba qolo liddi ku ah adduunyada maaragtaana uu ka hor keenay ilaahay caza wajalla وانا لسكو ديلي تريا والارض وضعها للانام الهي بقرانك كو شيغay dulkan iyo waxa ku dhex jiro oo dhan waa wax xikmad ku dhisan weeyaan nolosha adduunyadu xikmad ilaahay ku dhisan tahay dadka hal caynad oo kaliya hadii laga dhigi lahaa dee adduunku qiimo ma yeelanayo waxa qiimo ku leeyahay adduunku waa inay noqoto fuqaraa waa inay noqoto aghniya waa inay noqoto muslimiin waa inay noqoto gaalo waa inay noqoto madax waa inay noqoto majiih la maamulayo la xukumayay waa inay noqoto lab waa inay noqoto dhidig waa inay noqoto dad bukaana oo jiifa waa inay caafimaad qabtaa iyo shaqaysaa iyo socotaa kan caafimaadka qaba waxa la leeyahay ka bukaha ku cibro qaato
كغنيga waxa la leeyahay faqiirka ha ku cibro qaato ka muslimka waxa la leeyahay ka gaalka ha ku cibro qaato ka amniga haysta waxa la leeyahay kan colaad iyo cabsida ku dhaxnool ha ku cibro qaato ka lixaadka loo dhameystiray waxa la leeyahay kan buka ee lixaadka laga naaqusay cagaha la ama lugaha la ama indhaha le waxba aan arkayn ha ku cibro qaata la leeyahay وسنة إلهي جل وعلا وخلقه سيلحي كو أبوري ولن تجد لسنة الله تبديلا إلهي سنة سنة لما بدل كرم مركا بني آدم كو بلنك إلهي أي لسوا قالين أدونك مركا يمادين بدنا بلنك ويكبحين وقفل بمركا دويدا لكياني بيأدا وكبر باري بمركا ساميسي qoys gaalay ku dhex barbaareen deedna gaaladiiba markaa saamaysay qaar qoys ma aragtaan diin aan lahayn bay ku dhex barbaareen deedna diin la'aantiiba iyagana saamaysay oo dad badan baa adduunka dusheeda inagula noolo ma aragtaan ilaahayna aan garanayn aakhirana aan garanayn iska nool yihiin sida xoolaha iska cunaan way cabbaan shahawaadkooguna way gutaan way dhashaan way dhintaan عوام بالله عوام دين ولي ما قاعدين دعاتنا ومتجن ما دارو توبيا كونوا ليهين وكينيا لقى هلايا وقاردنا أفريقيا عاد بيقول بدأ يهدد كاس markay ummaddu walibana diinta dadaalkeega ay ka joogsato ayay dadkaasi soo baxaan indiraas marka dacwada laga joogsado ee dacwadu istaagto ayaa dadkaasi ayay soo baxaan dadka diin la'aantii jamaaca bari aan kula kulmay Addis Ababa dhulka dadka cawaamku ay ku nool yihiin bay ku baxeen xilli markaa roobku uu ku yar yahay wadad xoolo dhaqato oo beeraha fashaan beerahana way fashaan xoolahana way dhaqdaan jamaacadii markaa way dhex socdeen oo waxna waa ka soo islaamaan intooda badanna ma islaamaan dhinac kalena gaalada munasariinta ayaa dhex socoto iyaguna way gaaleeyaan laakiin islaamkay u badan yihiin ay jecel yihiin mooyaane gaalada ma jecla baa la yidhi waa qabaa'il dhan oo Itoobiya ku dhex nool yihiin marka waxaan ku dhacnay buu yidhi nin jamaacadda la socdo iiga warramayay xilli ay ma aragtaan beerihiina ay ka engegeen xoolihiina ay abaartu ka dhammaysay dadna markaasay isku yimaadeen buu yidhi halkay markaa isku yimaadeen baan anakoo aqdaama ayaan dhex soconaa buu yidhi markaasaan halkii baan kala qayb galnay buu yidhi markaa isku imaadkoogii odayaal aada u da'waaweyn oo markay dhibaata ay qabsato soo saaraan ayay soo saareen baa la yidhi odayaal duqa ah oo waaweyn aada u waaweyn way soo qaadeen waa la keenay meel keliya yimaadeen markaas wasqa qabsadeen markaa gacmaha saasay isku qabsadeen halkan sanduuqyo ayaa la hortooda sanduuqyadii baa la furay hargaa laga soo saaray hargihii baa markaa dhulka la dhigay buu lagu waray buu yidhi waa dad dhowr kun oo qof ku dhow ka warraba dumar iyo rag wada qaaqaawan cawaam markaasay gacmaha intay isqabsadeen bay iska ooyeen buu yidhi ilintii ka daadanaysay ishooda markay hargihii ay qoysay ilaahay roobkii buu siiyey ونحن نراه من قريب بودي أنا كنا مال أيك أن كفوجين بنجوجنا لكن وان أجينا بودي الله سعنا الضوانينا مركز الراب كي ودا أيوة فرحين وأنا قويهن حتى در مسيتان قرادنا هدي وقف كردنتو لما دوجو كوا كلا هديان وكوا كلا اسكعنا markay roobkii ay heleen ayay farfarxeen ayaa markaa annagana noo yeedhan oo malab iyo waxbayna siiyeen buu yidhi caano markaasaa odayaashii ugu da'da weynaa baan markaa la fadhiisanay buu yidhi oo lanoo yeedhay oo meeshii ay ku cuntaynayeen
markaasaan odaygii baan ugu leeyay annaku muslimiin islaamkaan jecel lahay buuri islaamka aakhirkana waan islaami doonaa buu nagu yidhi markaasaan ku nidhi sanduuqyadii hargaha aad ka soo saarteen ee hargihii aad ku xerayseen eed ku xidheen hargahan maxaa ku jira bal noo sheega waa maxay xikmadda marka oday baa amar bixiyo wuxuu yidhi sanduuqa fura waa la furay hargihii baa la soo qaaday waaba hargihii xaggan markaa qallibkay markaa u rognaayeen waa la rogay waxaaba ku qoranba aayado qur'aan ah maxaa ku qoran aayado qur'aan ah markaasay ku leeyahay abaar markay nagu dhacdo ee xooluhu naga dhammaadaan ee beeruhu naga baaba'aan halka u dambaysa markay naga gaadhaa sanduuqaa baa soo saarnaa hargahaa baan ka soo saarnaa waa la goglaa waa lagu dul baroortaa waa la ooyaa ilintu markay ku dhacdo harigga ilaahay roobka waana siiyaa bay yidhahdeen harigganoo maxaa kugu qoran qur'aan aayado qur'aana ku qoran ba waaba kala furnayba waaba aayado qur'aanaba innaa fataxnaa laka fatxan mubiina iyo aayado qur'aana wahuwa aladii yunazilu algaytha min bacdi ma qanatuu ilaa aakhiri alaayaat aayaadkaasaan ka akhrinay buuli markaasaan ku nidhi dee aayadahan qur'aankan waa carabi waa qur'aankii nebi maxamed ku soo degay markaasay idhahdeen kunna waan ahayn muslim waana noqon doonaa aakhiru zamaanka hadduu alla yidhaahdo oo weliba ajdaadayadu waxay nagula talin jireen ee nooga tegeen dardaaran dad baa xaggaa bariga cedeed ka soo baxay iniiga iman doona diintay iniila yimaadaan waa diintii ajdaadiinne diintooda qaata markaa dadkii bariga weli nooma iman bay yidhahdeen barigu markaa waayo waa innaka weyaan waa reer bariga ahlu sharqu waa innaka mile iyaka xaggan iyaku galbeed bay naga xigaan innakuna bari baan ka xignaa markay dadkan barigu ay dacwada la dhaqaaqaan ee risaalada ummadda la dhex maraan ummadda waa iska soo noqon ilaahay baana soo celin insha allah dhahada marka indiraas wuxuu dhacayaa haddii dacwada laga waayo ummaddu diinteeda way ka tegi markaa diinteedii ilaahay ugu talagalay inay ku dhaqanto oo diinteeda ku camal fashana way loobi ummaddu markaas marka bini aadanka laba shay buu leeyahay waxna waa hadaf nololeedka ilaahay u abuurtay maqsad waxna waa daruuro weeyaan daruuro waa maxay daruuradu waa waxa mar walba inta badanna aanan loo baahnayn loona baahan yahay lagana maarmi karin aqal qofku inuu yeeshaa waa min adaruuriyaat xaas inuu yeeshaa waa min adaruuriyaat awlaad inuu yeeshaa waa min adaruuriyaat kasbi xalaal qofku inuu ka shaqeeyaa waa min adaruuriyaat laakiin hadafkii nolosha laga lahaa maaha intaas hadaf nololeedku waxa weeyaan waa ilaahay tabaaraka wa tacaala macrifadiisa allihii ku abuuray ee ku jirsiiyey ee noloshaad haysata kugu deeqay ee waxaad haysatana ku siiyey waxa kaa maqane adigu aad tabanaysana mar walba agtiisa ay yaallaan allaha garashadiisa iyo taacadiisa iyo baryadiisa iyo cibaadadiisa waa hadafkii noloshaada laga lahaa weeyaan inaad shaqaysataa oo ubad iyo reer aad yeelataana waa daruuriyaat alxayaat hadafku inaad cunto oo dar xidhatid oo aad seexatid oo aad shaqo tagtid oo aad dhashid oo ilmaha aad korisid oo ilmaha aad waxbartid hadafkii maaha waa daruuriyaat alxayaat hadafku waxa weeyaan inaad adigu aad noqoto addoon ilaahay inaad maxay noqoto addoon ilaahay meeshaad doonto joog dabaqadaad doonto ee ummadda ka mida kaga dhex jir waa inaad noqotaa addoon ilaahay ood u fahamtaa waxaan adduunka dul yaale ilaahayna siiyey wuxuu ilaahay noo siiyey lilikhtibaar diintana ilaahay waxa way noo siiyey lisacaadati dunya walaakhira inaad adduunka ku liibaanto aakhirana aad ku liibaanto waxa u sababa waa diin ama awlaadaada iyo islaantaada iyo reerkaad ka dhalatay iyo kasbigaaga xalaasha iyo waxaas waa daruuriyaat alxayaat aqal qurux badan baa la dhisay aqalka bilaa masquul hadduu noqdo ma la galaya may
أقل كستو قروح بدل هدو مسقول أوصل لهين عند دقي ميسو مسقوشنا ماشي الله نحجي فنا ما هنا وعمل لا استعمال مركب قفك حاجة وقبض عند الحاجة هم بالله استعماله بس لقوا مرة حتى قفك مسقولها كل حراقة محل هذا وركن جني بكجرة جنك هلا قصاره مسقوش وكما صبحه وطبيعة اللقوية قاندتك الله مسقله مسقوش كوي كل راقان dadku haday adduunyada maanta ku raagaan shaqadeeda waa ducay u baahan yihiin marka cilaaj bay u baahan yihiin sida qofka lamsigu jinku taabta loo cilaajinayo ee quraanka loogu akhrinayo ee ma aragtaan ducooyinkii nabiga kaleey salaatu wasalaam loogu cilaajinayo ayaa loo baahan yahay kadaliga qofka adduunyadu ay naga qaadato in la cilaajiyo qofkaas u baahan yahay laana daruuradii buu ka dhigtay maqsad marka daruura waa maxay waa waxa marna waa hadii loo baahdana waa la isticmaala hadaan loo baahna lama isticmaali karo mar waa loo baahda marna ma baahdo musqusha markii loo baahda la gala markaan loo baahna la gali maayo iska xidhnaan cuntadana markii loo baahda la cunaa hadaan loo baahna aqalka waa iska ooli lama cuni maayo biyaha markii la ooma la cabba markaan loo baahna la cabbi maayo wala iska dayn hurdadu waa daruuriyaad kadalika marka la jiifta marka loo baahdo hadaan loo baahna xanuun ba laga qaaday hadad maanta oo iska jiifto bila maqsad xanuun baad ka qaadiba lidalika raggi caarifiinta haya ilaahay yaqaan waxay oran jireen akluhum faqa wa nawmuhum ghalaba wa kalamuhum darura bi oran jireen al caarifiina billah raggi ilaahay yaqaanay ee waqtiga qiimihiisa yaqaan waxay oran jireen cunto cunkoogu waa baahi weeyaan markay u baahdaan ay gaajoodaan oo cuntada cunayeen hurdadooduna waa goorma waa markay riday daalaan iska dhacayeen imika inagu jiifka ma inaka raadinay misayadana raadisay hurdadu ya inaka raadinay wuxuu kuleeyahay war saacad baan galgalanayaa hurday ma haysaba xaq maxaad waa maanta oo dhan baad hurdo sharaad hurdo habeen horaad hurday ماذا أعمال قبتها بعدكم رجنا سيدي هبين صلاة وقول تاجنايين مال النردنا كتب الدين برشة دي عبادة أي غفورين أي نفتود وأي كل كي هردد وغالب كأنه قتيس كدول دعان كلام كوجنا ضرورة أيها ضرورة إسكما هاللينون إمكادات كأنه واسك هاللينون تقول ما أنت واسك هاللي المقاعد أسوس كفريسة صومالي وما أنت ونبو شاكين وما يدري هذا الكبحين ونعمة قوة بكبحيسة دايما شد وقوة كبحيسة مغلق وقوة كبحيسة سعود وقوة كبحيسة دلني يرنمد وقوة كبحيسة وصور نقنين ما القفك الدادين يبقى لي وحا كإسراف بدن قفك النعمة إلهي أوسيي نعمة الجسماني إلهي أوسيي قفك ما لا يعني كبحنا أيا كمصرف سن lacagtood la daadaadiya waxa ka dhibaato badan oo umada uga dhibaato badan baa leeydi waqtiga lagu ciyaara nicmada jismaaniga ilaahayna siiyay oo aan meel aan meesheedii hayn aan ku bixinaa taas diyaca lidalika nabiyuna alayhi salaam wakiilaha la tukthiru al-kalama bighayri dhikri Allah habadsanina bu nabigu hadalka ilaahay xuskiisa ka baxsan bu nabigu habadsanina محايا لي فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي حديث معني سوها هذا الإله حسكي سكبح سمو نبي قليه هبت سننا هذا الضروريات كضرورة هذا انتو ضرورة ذا أمبا الله استعمالها بس أما ذكرك إلهي والله بتصدا يسقع إن بتصتا الله أمري قرآن أخرس كإنات بسطا لغو أمري استغفارت إنات بدسا لغو أمري صلوات النبي عليه الصلاة والسلام إنات بدسا لغو أمري دين تددال كإنات بدسا لغو أمري فاستبقوا الخيرات خير كأسوك لبدية بالليل خير كالله أسوك لبدية لكن هذا الضروريات قدر الضرورة إلا استعمالها لو بحية حاجة هذا الكاسكا ما أنت تدكو عمال وانت لفرستان أي دوريا ميان ونعمد إياك جيركو ذا كبحيسا أو نديب دم وقصو نقنين
waliba nicmada waxay ku baxday maalinka qiyaamaha waa laga abaal marin doonaa qofka saadarteed bay oran jireen raggii saalixiinta ahaa war hadalkoogu waa daruuro oo iskama hadlaano daruuro Aamir ibn Abdul Qays baa lagu yiri nin baa ku ii joogso markaasuu cadcada ii joojanaha ku joogsaday aan bariga saacad dadku ma haysan waxa lagu xisaabtamay cadcada ay ugu socotay anigana cadcada ii jooji buu ma joojin kartaa maya de ma joogsan kare buu waqti bay ku socdaa salaama inagana maanta waxay naga maraysaa inay dadku ay yiraahdaan waqtiga maanta intee ku soo dilaa waqtigi meel aan waqtiga geynaba garan mayna buu madiiri salaaxiyad iyo nicmada ilaahay umada uu siiyay umada markay khayrka u isticmaali weyday shaydaan baa markaa ka faa'iideystay maqaayad buu furay majalistii qaadka wadanka ku sii badanaysa oo qaadkii baa meel walba imika yaal adiyaac qaadka bariga hore inagu reer koonfureedka waa bad ka sahlanaydeen hadda waa ku talax tagteen ba imika iyo waqtigii baa iyo cunaya dhaqaalihii buu cunaya caafimaadkii buu cunaya cibaadadii buu cunaya sharafta qofku dhaawacaya shanta ay shariicada maqaasidu shariica ay culimadu yiraahdaan ayuu dhaawacaya dhaqaalihii buu ka dhaawacaya waqtigaagii buu dhaawacaya caafimaadkii buu dhaawacaya cibaadadaadii iyo diintaadii buu dhaawacaya cirdigii qofku lahaana uu dhaawacaya waqtiga halkeen inteen ku soo dilaaba inaka maanta naga maraysaa ragna ma aragtaan waxay lahaayeen cadcada ay igu socotay cadcada ma joojin kartaa cadcada saad u joojin karaynin ana ma joogsan karo laana awqaadaydo dhan bimaana waa bumarmaj waqti waa salaad waqti waa quraan waqti waa dacwad waqti waa tacliin waqti waa alla bari waqti waa nasaso waqti waa adeeg umada loo adeegayo saadarteed nicmadan hadalku waa nicmad inaga baxaysa waa hadalku waa nicmad uu ka baxaya maqalku waa nicmad uu ka baxaya uu yaraanaya qofka markuu 20 jir yahay markuu 60 jir noqdo aragiisu masku quwad ba may hadalkiisu isku quwad ma socodkiisu isku quwad ma marka nicmadu intay yar tahay baa la ilaaliyaa حفظت الله في صغري فحفظ الله في كبري بولي من صالحين تكمد ايا عمري سبا الهي وبركيي markaas lagu yiri adiga dhaqaaq leh maxaad cuntaan lagu yiri noo sheeg wuxuu yaraantaydii baan ilaahay ayaa nicmadii yaraanta ayaa ilaahay ilaaliyay buu aniga bimaana dhalinyarnimadaydii baan ilaashaday oo daacada ilaahay baan ku ilaashaday weynaantaydina anna ilaahay baa ilaaliyay buu markaas yaraantaydii markaan ilaahay amarkiisa aan ilaaliyay ishu awaamir bay leedahay awaamirtii ishaan ilaaliyay dhagto maqalku awaamir buu leeyahay maqalka awaamirtiisa baan ilaaliyay dhalinyarnimadii waqtigu waa nicmo ilaahay nasiiyay waan ilaashaday maadaama yaraantaydii ilaahay azza wa jalla amarkiisa aan ilaashaday anna markaan weynaaday ilaahay baa nicmadii ilaaliyay buu markaas marka daruura wayna fahamna daruuratul hayaat cunta in la cuna maaha hadaf waa daruuro weeyaan biyaha in la cabba maaha daruuro waa hadaf waa daruuro weeyaan hadaf maaha cuntada adduunka hadaad maanta oo dhan cunto dul fadhido cunto waad ku dhiman hadaad maanta oo dhan biyo aad wada biyahaas waad ku bukoon waad ku dhiman maanta oo dhan hadaad jiifto iyo caawdo hadaad jiifto waxa laga yaabaa jiif ka badan in xanuun aad ka qaado cunada adduunyadu waa caynkaas laakiin cunada aakhiradu laguma bukoodo sharaabka jannada dhexdeeda lagu cabba laguma bukoodo hadalka jannada dhexdeeda lagu hadla laguma bukoodo orodka jannada dhexdeeda lagu orda laguma daalo laguma bukoodo
لأنه وحجر بني آدم كادون كدوش يد أحددا آخر مركي مؤمنين الجنة أي قلان التحديد كإله وكقضايك أدون كدوش يد عنك قوى محدود قياس بعلو سلالا وحا انت قياستا إن كبدن هدو قفك عنا وكبكون أعبك قياس بوليا انت إن كبدن هدا عبت واتكبكون جيفك قياس بوليا انت إن كبدن هدا جيفت واتكو حنوصا هذا القو قياس بوليا قياس تعديل الدافية عديقا كنا وعمي صعدك والله مد وحا حددان ودن التحديد كأدون كدوش يد اللغو سميي مؤمنك مركو الجنة قال إلهي وحا وكدك يا مطلق مؤمن مؤمنك الجنة يحيى مسوي نولانا يا ولا يجيبوا اسكن نولان جنة دحديده ما دمنيان ما بكونيان ما قبوبيان ما جيفنيان جنة ما جرت هذه مرة قال هرده ما جرت لأن هرده أدوك maxaa keenay tacabka maalintii ku soo gaadhay baa Ilaahay kaaga zuuliya ama muuminiintu jannada dhexdeeda ma badalayaanba waxay ku tabcaan arki maayaan لا يمسهم فيها النصب وما هم منها بمخرجين بإلهي أهل الجنة جنة دحديدة إلهي يا كورما يوله جنة دحديدة واحتعب وهبا يراتي تعبوا كان أركم مايان جنة أنا كوا كبح يا ما هم بإلهي الله ينقدك كواس نولا شيء سوى مطلق والله فري ما بدي من يليد ورد ما بجرت على ما صحنايو وفيسك السوق جدو النول كورما مش كان نولان ما نصيحنا وش كعون عنتو ولقي جنة دحديد عنتو دا جنة عنا يكب كون مايو جنة دحديد هو عبي وحوضون وعبي أحبا كن نغن مايو أنهار دم بامريس هوستيس توك سعودة أو خمرية وعبي وحبا نغن مايو توك عانو عبيا وحبا نغن مايو توك ملابا هور مريا وكعبيا وحبا نغن مايو توك بيا يا هور سعودة وكقادانا وحبا نغن مايو أما أدون كدو شيدا دادكم ملابك ويجعليهين لكن نسكولو ملابا معبي كرتا معبي كريس لتر عنا بدا من كريس مسكيلو بريس ما عنده كريس تتقدون كدو شيء ده اسكو علول والله كلا بدسد حق العق ورنتا لكن cunto cunka waa isku qiyaas uma nahay waliba waxa laga yaabaa kuwa fuqaradu inay ka cunto cun badan yihiin kuweede kuwa haysta bida boogtay taajir intuu taajirka noqonu hantida helin faqiir buu ahaa miskiin wax walba uu iska cunay maruba u qaraxda tijaaradiisa yareed baa Ilaahay u barakeeyay mar alle markii tijaarada u qaraxday lacagtii u badatay xanuun baa ku bilaabay isagii markaas kolba dhakhtar buu tagaa markaas uu yiri warba markaan helay iga xarimaya buu yiri dhakhtarkii baa ku yiri hilibka iska daa oo maraqa iska daa oo baastada iska daa oo macaan baad leedahay macaanka iska daa oo waxan kale iska daa oo waxan kale iska daa wuxuu yiri inta markaan xoolaha aanan haysan waxaan oo dhan ma qabin buu yiri waxaan oo dhan xoolaha la socdaan buu yiri ilaahi waa caadil dadka maal qabeennada iyo dadka fuqarada mid ka caafimaad badan bal sheega ma inaad faqiir noqotaa jeceshahay mise inaad maal qabeen noqoto adigu عجيب بني آدم سيدا مصلحات دين وهي كجرت إنكم من نقان إلهي يقان إلهي تدكوين يسكون ديبان أو ديار معها سيدا مصلحات دا عديقة كجرت ما لا يقان مثل ربي يكو أبور دادكو إلهي يكو كالسونا دان يسكون ديبان أو ديار معها حق الله سعودا مركع وأبا أجي دابا ودارك يسابا نمبنكو كهان تير يحي أيو كعافمات بدن يحي نمبنكو كجبرون يحينا وكعافمات ليتا وكول البدن يحي وكول بهار بدن يحي وكعبسي بدن يحي يا عبسي بدن وريا عبسي بدن منك جابك أبو حمس مسكين كفقير كعشان هيسن كوا جابك وحوقا وجو جيران بعبسي بدن مر والبا
مسكين مياه ولا هو سكاي مد بولي هدا سoconi hada joognaba marka hore meesha silci baa ku joognaaye ilaa khaatimada noo hagaajiyo muskaga ducaysan ma cabsoonayaba noloshu sidana inaku aan moodayna ma ilaahay baa qaybiya nolosha Ali bin Abi Talib baa lagu yiri Allah raali ka noqdee ya amiir al-mu'miniin dadka fuqarada maxay u noqdeen dadka ugu aqli badan فما بال الفقراء عقلاء بلغوي قال العقل محسوب من الرزق بوي استو عقل وارزاقته كمد ما هبوي وفقير لكن عقلي وريرده ما ملو الهي سي وما القبن الديو هيستا لكن ريركيسا وما تلين كرو الميزه ما مامولي كرو islaanta u talisay islaantiisa saasu marka Ali ibn Abi Talib uu leeyahay war aqliga dhanba soo arsaaqad ma waxaad moodaan budhungu wax la cunayo kaliya aqligu waa arsaaqad akhlaaqdu waa arsaaqad awlaadu waa arsaaqad caafimaadku waa arsaaqad waxa soo Ilaahay baa qaybiyo bixiya qaar baa hanti haysta laakiin caafimaad ma hayaan qaar hanti ma hayaan laakiin caafimaad baa Ilaahay siiyay balu fiirso dadka masaakiinta darbi jiifka qaar baa masaakiin oo boolal yar yar oo kuwa cariish bay aqalada cariishka ku nool yihiin ciyaalkooda quruxdooda waad yaabi kuwa maalqabeennadana ubadkooga haddaad aragto xaafadahooga firiishka dhan baad arkaysaa oo daawadu ka buuxdo isbuuciiba daawa laga soo iibiyaa dhakhtarka ka miskiinka faqiirka ma aragtaan aqalada cariishka buulka iska galana waxa laga yaabaa dhowrkii sano inuu ilmuhu mar kaliya u hargab helo bas dadka dhakhtarada dibadaha u dhoofa ma fuqarada ama dadka maalqabeennada wax dhakhtar baan u dhoofaya hadal haya markaad eegtaan waa kuwee u badan kuweede kuwa kharashka haysta wuxuu la dhoofidee sheeg waxana Ilaahay ka daadinaya Ilaahay baa waxayna baraya inaka tacliimaadka Ilaahay inaan qaadanana ummaddu u diyaar maaha maanta amnigi waa la mid amniga Ilaahay baa bixiya baashu Ilaahay amni uu ka dhigo cidna colaad ma aragtaan kama ridi karto meeshii Ilaahay cabsi u qadaray inay ku noolaatana cid amni u keeni kartaa ma jirto amni تصرفاتك كونك إلهي بالعدك لما لوقو الله خالق كل شيء سو إلهي مدهن آيات كلنا وحو إلهي وله كل شيء شيء والبإلهي سقى عبوري شيء كستن إلهي سقى اسكاله ألا له الخلق والأمر أمر كان إسقى اسكاله أمر تصرفاتك عالم كان يوحى دعايا وحى صوص عدا وحى دعي دونه وحى دعاي وحى جوغا غورتا دمان هلكا تكون دمان والنظام إلهي وإلهي قدروا إلهي مالدقي لما نبدل كرا النظام كإلهي نظام كإلهي وح بني آدم أي كل شغليه ما هو واحد بيذا كدعي أعماش هذا وارون عمل وناكسن هذا التي ما ده حالة هذا وناكسنان عمل حن هذا التي ما ده حالة هذا وحمان قرآن إلهي كل شيء قتانا بلايا الله كولانتين با إلهي وواحد إنكو أدقيستين برواقا الله كولانتين برواقا أنا إني كينا با إلهي وحي وناق إلهي والله نسبيا لكن وحي دباتية مصيبية شرنا وانا ترى هذا أنا قدم بقي قويا اسبدل لما كانوا ما يمادوا إلا ضدكم اسبدل موياني تدكو هذا اسبدلان نظامك إلهي ببدلي مركبة dadku hadday isbedeli waayaan nidaamkana ilaahay ma bedelayo wasiyaad kan nidaam laana bini aadamku nidaamkan caalamku ku socdo shaqaba kuma leh
نظام الحياة أدوغو ما بهيسد بقى waxaad cunayso waxaad cabayso meeshaad marayso waxa kula soo darsi doona meeshaad ku dhimanayso intaad adduunyada joogi doonto asbaabtaad u dhiman doonto arsaaqadaadu qadarkay noqon doonto inta ilme ku dhalani doona meesha u kala yaacayaan meesha ku noolaanayaan nidaamkaas nidaam gacanteena ku jira maaha waa nidaam ilaahay weeyaan wama tashaa'una illa an yasha Allah ma doontaan baa ilaahay illa ilaahay oo doona mooyaane mashii'adiina mashii'ada ilaahay baa ka sarreysa sidaad adigu aad rabto ma noqonayso arrintu waxay noqonaysaa mar walba siduu ilaahay isagu doono marka addoonka isaga waxaa laga rabaa inuu noqdo istislaam kaamila laga rabaa inuu ilaahay isku dhiibo istislaam min samiimi alqalbi maaha istislaam la dooni maayo carabka waa in dadka muslimiintu qalbiga ilaahay iskaga dhiibaan إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إبراهيم عليه السلام ربي جيب أكوير سليب إبراهيم هو قاسم بالقول هو قاسم إلهي وأنا سليب أسلمت لرب العالمين وعنوه قاسمي وطلد يدي أنو ديبي وقلبا وغالبا أنوه قاسمي لرب العالمين عالمين ربي قودي ereyga markuu nabi ibraahim uu yiri baa la yiri waxa uu bilaabantay tarbiya uu bilaabantay ila islaam la dooni maayo afke islaamku waa inuu noqdo amali islaamku waa inuu noqdo qalbi ya amali wada socda markii nabi ibraahim lagu yiri isdhiib ee isaguna uu yiri waan isku dhiibay oo anigu rabbigay baan isku dhiibay markuu yiri tarbiya nabi ibraahim uu bilaabantay baa la yiri meesha looga bilaabay ma taqaanaan 90 jir 100 jir qiyaas isagoo aba ilaahay u badsiiyay saarana waxay u dhashay isxaaq haajarana ismaaciil markaas lagu yiri reerka halkan ka rar halkan geeya jibriil baa ku raacay isaga raac dhulka laga keenay waa dhul camiran oo dhisan oo magaalooyin leh oo asbaabta bini aadamku ay ku noolaadaan oo dhan hareeraha ka taala reerka dhul waxa la keenay ma aragtaanay buraan hatta hal geed aan lahayn asbaabta bini aadamku ay ku noolaadaan waxa ka kow biyaha hatta dhulku biyo ma leh waadi ku yaala afar buuro dhexdooda baa leeyahay halka ilmahaaga islaantaada dhig waa makka halka kacbadu ay ku taalo agteeda waa meel waad aragteen xaramka dhinac walba waa laga soo dhaadhac xagga waa laga soo dhaadhac xagga waa laga dhaadhac xagga waa god barigee buuruhu ay isnaayeen baa leeyahay qofku halka markuu gaadho buuraha mooyaane dhul kale ma arkayn baa leeyahay hadduu dhinacan eego waa buur hadduu xaggan eego waa buur hadduu xaggan eego waa buur waliba buuro u dhow isku dhow ma dheeraa buuruhu meel kale qofku uu eego uma banaan ilaa xagga sare mooyaane xagga sarena maxaa ka xiga naxariistii ilaahay jannadii carshigii ilaahay markaan barina wanaka gacmaha kor u taagna ilaahay barina bimacnaa xagga sare eeg waa xagga ilaahay eeg weeyaan dhinac kale ha eegin halkaasaa lagu yidhi haajaro iyo ismaaciil iyo ilmahay wadato dhig ka noqodo casharkii koobaad waa kaas aslamtu lirabbi alcaalamiin soo ma dhihin ha tanna waa islaamnimada ka mid tahay iskaga tag baa lagu yidhi islaam baa tahay ha islaam baa nahay soco amarkaan qaado amarkaa balka warrama amar fudud ba ya islaantaadii iyo ilmahaagii waliba de ilmuhu markuu ninku oday baa la arkay moogtahay ilmo yaruun gacanta haysta wiil yar markaasay soomaalidu tiraahdaa warkan ma konton jir buu ku dhalo waa ka sii dayn leh ha ilmaha markaad konton jir aad ku dhashay ilmaha 20 jir ku dhashay waa kala jeceshahay
لأن والدك كلما أصيب وينادى نحرسته كبدة قلب جيسا المها السجاشة جر لقول لك ورما انتين النبي إبراهيم عليه السلام الميسا وجعلها اسكاغتك بالغوي أنا كاكوسيني أنا كدرتين أمر كيغو غتك سو اسكوما كاي ديبين ها ده كدبه أنبياء عليهم السلام ما دام إلهي وضعوا كفرايا إياك وضع حرم بالغو فرايا وضع حرم تقانا وضع وحي فرايا حدوت ولا بني آذنك أي إلهي أمر دونان أربعة وضع أمرك اللي سمينا إنت أصو ضد كل متى وضع بري أن مرنايو مال بورا توبي يكون احتال بورا أدو دادر باور بساو كرايو هيا أودي ما نوجا شاكيني وضع بري إيطالياني كو لسه يبودي ضد لا دور كن أو قف كله ما كل متى بودي هذا هذا صدف أذكر مرسال وضد بني آدم كويوا ديك سنة يان أسباب الحياة أيال أنت أسوأ كنا قفا كقر بحدي لأن وضد واتها اللي نفري وضد إلهي الضومه سأورى لك كغن غنايو عند فرس كورم وضداس إيماني يقين بالغ فرا وضداس wadooyinka gaadiidku marana bira lagu fura bira iyo farsamo iyo injineer iyo qalab iyo wadada ilaahay loogu dhawaanayo ilaahay uu raali kaaga noqonayna waxa lagu furaa iimaan ba lagu furaa tadxiyo ibraahim alayhi salaam iskaga dhaqaaqay ila marka hore ilmahan yaasi wariya ku sii yaa iskaga dhaqaaqay hajara ka daba hada soo ku tiri ibraahim ma mar ilaahay baa nagu dhigtay oo ilaahay baa ku amray ilaahayna ma dayacay iska socod ku tiri saalixadaas intee iyadna ilaahay ku xidhan tahay imaganagu xaasaskeena inakaas ku xidhna ilmuhuna hooyo ku xidhan yahay islaantuna odayguna kambanigu u shaqeeyaa ama dukaankiisa مخلوق إلى مخلوق مخلوق إلى مخلوق مخلوق إلى مخلوق لكن نلش أسر الأنبياء أنبياء قيسس كوجو المها يربى إلهي كحرا حبرت إلهي كحرا أوديجا إلهي كحرا قيس كدم بعمدول بإلهي توسو كحرية والله بري هداد وحوي ديسن يدوي ديسن هداد كلمة وباحتنا إسقام كلمة يسوع تاسع بريك تاس إنك وإنك هذا الحد لكن يك عمل بكاهي حقيقة بل فكر عدو مال العلعد أو بهجوية أو بيلهين أو باللهين أو قف بشروا وهشتون الجوجن يا هويني المهجي يرى وضع الغيري هل كاسم كردقون كاجت تقول إلهي بكاجت تجا سلامة يدون إلهي بيكون حرنته ما أمر إلهي بها إلهي بنوقف لنا سعي كتري نبي إبراهيم عليه السلام بوها كاسي السو طريق بوجيحي إنك مية أمريكا دعوة بحينا خروجك وبحينا يا جماعة عددا عن بحين راعينه الريركا قاعدوا مارك تاني هؤلاء هاجر يا إسماعيل بإبراهيم علو كجت جاي أنا بلا بيل بان كجت جاي يا إلهي بان كجت جاي إلهي تلصارو waxa ka fiican saxayda adigu khuruujka aad ku baxaysa intood iyaka uga tagtid adigu inaad tawakkul ku baxda fiican wala fahmanu malayn adigu inaad iyaka na tiraadid waa kan masaariiftiini 4 bilood baan baxaya masaariiftiini waa tan markaas keento timaadid aad tiraadid adiguna saxayb ma wato tawakkul ala allah ba watay jamaacad tawakkul ay ku dara ما يجران جماعة داس وما يجران كواس وملايك إنكم ملايك من هنا بشر بانها جماعة خارجيتهم مركب بحياة سايدوا ذوالس قدر صدام بأموالكم وأنفسكم مركز إله درتوا بحي سنة ريركا مساربتوا وكالي
وكي النبي يقول عليه الصلاة والسلام نينك يمد أور كيغا مان دبرا مسا إلهي بانو تلا سارتا لبادي والنبي واسكو راعيه حادقا كحرو إلهينا تلا سارا هذا يعن ريركاغا لأن الدعوة دين بيدس إسايا دين دومين ميسو شريعات باندي سينا شريعات دينا كودا قنان ربنا وحان ودنا دعوة نودا دالينا وحكا لما سين نولشينا ديني اوتمادا او الله هلا قويس odagii iyo habartii iyo ubadkii intuba ilaahay ku xidhan yihiin oo noloshooda diini ka muuqato ibraahim calayhi salaam ikhtibaar fara badan baa ilaahay mariyay dab baa lagu tuuray waa adkaystay ilmahaaga gowrac baa lagu yidhi waa u adkaystay waana u diyaar garoobay inuu gowraco dalkaaga ka tag baa lagu yidhi uu ka yimid shaam ka tag uu ka tagay ciraaq ka tag uu ka tagay firaaqu lwatan firaaqu lahl tadxiyat alwalad waddankaaga hur uu huray ehelkaaga u hur diinta uu huray ilmahaaga diinta u hur waa ismaaciil beree ma huray mise u diiday waa huray diyaar buu noqday isagu naftaada hur baa lagu yidhi dadka marka lagu tuurayay diyaar baan ahay in la ii tuuro ilaahay dartii dabka in laygu rido yaa rabbi anuu diyaar baan u ahay اختبار فربضان أول مريه كذب إلهي وكيلها وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات معك حقا فأتمه صماه ورد ما يستري معك حقا مركز دمنا قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بإلهي إلا النبي يدو أمد بي الربعين كتغاني isagii imaam baa laga dhigay maxaa imaam looga dhigay laana isagoo tadxiyo soo maray tadxiyo dalkaaga u hur baa lagu yidhi ilaahay dartii uu huray ehelkaaga ilaahay dartii u hur uu huray naftaada ilaahay dartii u hur uu huray ilmahaaga ilaahay dartii u hur uu huray markaasaa ilaahay yidhi imaam baan kaa dhignay ilaa goorma ilaa saacadda qiyaamadu ay dhacayso waa imaam bal iska daa shareecaddiisu inay indiraastee نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أمتي سال ليري إبراهيم جدكي سراع بالليل واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ملة إبراهيم راعب إلى حين كن ضيد ويان شريعتك كقضيد يسقع إيمانك كقضيد حق آمنات إلهي isdhiibada ilaahay la isku dhiibay kaga dayda mushrikna ma ahay nabi ibraahim alayhi salaam mu'min muwahhid abu hayu ilaahay aaminsan xaalad kastoo la soo daristay ilaahay buu wiilanay mar walba markaasaa ilaahay wuxuu gaarsiiyey maqaam la yidhaha khaliil ilaahay khaliilkiisii أبيك معراج كنبينا عليه الصلاة والسلام هل كيف كمر النبي إبراهيم سمدا تضباد أيو سلا جوجي أيو لا جوجي وبس كيرير أيران تقول صغيرة بوسكلا جوجي وحال يري محي كنا عند النبي إبراهيم ودأويني الدنيا يسوق دأوين جيريو ده أدونك كجبح يسوق دأديسو بقول ككرو دافتي in lagu arko toddobada samada toddobaad dusheeda asagoo ciyaalka yaryar ee sagiiray ee dambiba aanan galabsan shafiic alwaalidayn baa inaku naqaana xaggeena inuu kuwa la joogo la noolaada maxaa u sababa ismaaciil cillu kaga dhaqaaqay ismaaciil bere baa laga yidho birtu la dul baxay waa imsa tadxiyo إسماعيل برت الله دل بحبا لقول قورع المهاجة يا رب ديار بان هيبو وكو قبتي برقاس قال لقول امتحانهم بهيده امتحان كانوا تكون نجح ذا لقول
إسماعيل إنك دقاق وكدقاق. أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام والنبي يقول حديث مالك قيامها خلائق مركي قبورها كصوبحان أيكو قاقاون وبلا در يصوبح دونان شخص ugu horeeya banka qiyaamo dharka loogu xiri doono waa nabi ibraahim oo nabigeenu عليه الصلاة والسلام ما تقانا sababta nabi ibraahim خلائق isaga hortii dharka loogu xiray maalinkay qoomkiisu dabka ay u shideen ee manjaniiqa ay saareen dabka ilaahay dartii ay ugu tuurayeen isagoo qaawan oo bila dhar ay ku tuureen baa leeyahay tadhiyadaas eeg maalintaas uu adkaysto sabray ilaahay dartii baa dharka looga saaray maalinka uu adkaystay wuxuu ku helay maalinka qiyaamaha khalaaiqdu wada qatan oo qaawan banka qiyaamo markay soo baxaan shakhsiga ugu horeeyay dharka jannada ugu qurux badan la soo bixi doona loo xiri doono inuu noqdo ayo ibraahim alayhi salaam laana diin wixii loo horo diinta qiimo la moogta shayga diin loo horaa lama waayo adduunka dusheedana khayr baak iyo sumcad wanaagsan baad kaga tagi aakhirada aad tagaysidna iyada asale nolosha adduunyadu asal maaha waa nolol dhamaanaysa waa nolol mashaakilkeedu mar walba joogto u yahay waa nolol maalinna aad farxaysa maalinna aad murugoonayso waa nolol maalinna abaar aad ku dhacaysa maalinna barwaaqo yar iyo khayr yar aad la kulmayso waa nolol inteeda badan wax kaa murugsiiyo mooyaane wax kaa farxiyo ay yar tahay inaad aragto noloshaa yar qofku markuu in yar ilaahay dartii u tadxiyoodo wax weyn baa ilaahay aakhiro ugu bedelaa saxaabigii masaajidka nabigeena ka kacay calayhi salaatu wasalaam yaa yidhi innii rajulun majhuud nin baahi ay hayse ayaanahay nin musaafira oo socota oo aad u gaajoonaya ayuu ahaa markaa buu nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi waar bal ordo aqalladaydii tagoo wixii yaalla ii soo uraysta buu rasuulku yidhi sagaalkii aqale nebi maxamed uu lahaabaa hal jawaab keliya loogu tegey bal wax cunto wax la cuno oo la quuto inay yaallaan aqalladaydii iga wardooda buu nebigu yidhi hal jawaab baa laga keenay maxay ahayd jawaabtaasi laa waladii bacataka bilxaqi maa cindii ilaa maa sagaalkii aqal waxay kulligood soo yidhaahdeen ilaaha diinta risaalada xaqa kula soo saaray baa ku dhaaranee biyo mooyaane baad la cuno aqalladayda ma yaallaan bay yidhahdeen dalab waa dalab diineed baahi baa ka soo yeedhay maskiidkiisii baahi diineed weeyaan nebigu baahida isagaa isku bandhigay inuu tanfiidin karo markuu xaaladda reerkiisa uu ogaadayna saxaabadiisibuu dalabka u qadimo wuxuu yidhi man yudiifu hadihi alleylata ayaa ninkan dayfka caawa ii marti qaadaya buu rasuulku yidhi inaku mutatalabaat markii markaska dalab inooga yimaado waxaa laga yaabaa ninka qadiimku inuu dadka kale u tarqiibiyu leeyahay dalabkaa markas ka yimaada tanfiidiya walaakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam dalabka isagaa u diyaar garoobay inuu fuliyo inuu ninka baahida masjidka dhexdeeda ku sheegtay inuu caawa uu marti qaado baahidiisa daboolo nebigu isagaa u diyaar garoobay laakiin markuu nebigu fariin uu diray sagaalkii aqalba laga soo helay jawaab midaysan ayuu nebigu yidhi dalabkan haddaba bal saxaabadaada u bandhigo wuxuu yidhi man yudiifu hadihi alleylata war ninkan caawa martibuu aniga ii ahaaye waxaan siiyaan aqalladaydii ka waaye ayaa ii marti qaadaya buu rasuulku yidhi imika aqalladeena wax la cuno maa laga waaye si kastoo magaalada muqdisho dhibaata uga dhacday xabad muusa iska helayseen waagii xaaladdu adkaydna sooma muusa iska barakaysanoo xabadiiba lagu dhargaayo عجيب سيد البشر عليه الصلاة والسلام خلقك إلهي أبو رشخصك وقيمها بدنا أيا أقل الذي سيلقوا يباد بيمويان أبو طلحة يدعني قام ارتقاض يعاو حتى أبو طلحة ريركي سوحا يالا كما ورقم بلي وهي صحابته كمي مشغول سنين ضروريات وحيكون مشغول سنين ومقصد الحياة
إنك واحد كم مسؤول سنة ما أنت ضروريات الحياة يقول واحد كم مسؤول سنايين مقصد هدفك هو دين إن دين لون ولا هذا دين لقى شغيه دين لون دينته برجع يسقينا وركا ما قبر يرجع سوا حياله والله صور دو مركز إسلامي سكويري لأن كان مرتي النبي قال يقول صوت دره بحلا عنا ما هيسابو كويري أروح لعنا قال كم يالان عرضها يا رير عنتدو دين وين عنتك لما تلا لقولي حول عرضها يرعي سيبولي عشان مركز كويديستان أنا قصه عيارسين maxay ku ciyaarsiin dharigay dabka u saartay baa la yiri biyay ku shubtay habeenkii oo dhan waxay ku maaweelinaysaa waa karsamaya cuntadu way noo karsamaysaa suga say u lahaayeen bay iska seexdeen baa la yiri intii ubadka loogu tala galayna ninkii dayfka ahaa bay hor dhigeen aqalkuna aqal afar qol amaha waa aqal yar oo cariisha faanuuskii buu dami way damisay ninkii dayfkii buu soo gal uu soo galiyay waa madow mugdi la isma arkaayo halkan u dhig buu isaga ka soo qaado hor dhigay adigii aniguna buu heblaayo sidii dad cunto cunaya afkaana dhaqaajinayna buu وهل هبين تضحية ليلة واحدة هل هبين بيت تضحيودين لكن هبين كقبوليات هي هلنا لسع قبوليات بايمان يسا وعلى الجيس النمدو وحمر والبقف كل فاقا معها جيس النمدو بالليل وصبر الساعة والساعة حالة هذا قفك إلا السود درسو أتكستبا جيس النمدو اللي قوها لا بالليل قبوليات دون بالي عمل بدن ولا قبت معها وعمل الهبين إخلاص أدو قبطود أدو أدور كهين إلا أقبليو وإلهي كا أقبلي وإلى قيامها لهذا الحي وأدون كان كاغا هذا سمعد ونكسني طريق في عن مركب النبي صلى الله عليه وسلم مركب أبو طلحة كويري سيدي أبو سمي واقي مركوب بريي أي الضيف يسيبك عنت سوقبتي سيدي رسول كان صلى الله عليه وسلم اللي تعلينته إكرام الضيف هي تعلينته بقى اللي يدي عهد النبي أقل ذا يتعلي أقل ذا مرتدى أقل ذا اللي جيفيني مرتدى أقل ذا اللي قصوا عنتيسيني مرتدى أقل ذا دينة اللي قصوا براي مالين كين المسكيت النبي أولا ينو رسولك عليه الصلاة والسلام بأفكيس دينتك قادنين هي دقيقيس دين لغو قادنا يبه العمل دقن يبقى انك دين الزمن كان والله برتا لكن ما دقن با لغو برتا ما اخرس با لغو برتا لغو برتا اخرس waxa laga yaabaa sheekhan wax akhrinaya isaga laftigiisa in ma aragtaan khilaaf inta badan inuu sunnada khilaafsan yahay laga yaabaa way dhacday arday baa macallinkiisa wuxuu arkay salaadii subax ay dhaafayso markaasuu macallin salaada subax way ku dhaafta adiga waa ku sideeyo wuxuu cilmigayga iyo amalkayga aad u hayeegina ka soo lan aslan diinta zamanada dambe waxa lagu qaataa waa akhris halka zamankii nabiga kaleey salaatu wasalaam diinta lagu qaadanayo dhaqan nabigu uu sheegayay oo ku amal falay قولا وفعلا هي إقرار نقدر إقرار ومعي وعمل كهرتي سلقوا السمايو نبي يقول عليك النقض عمل وناكسن ومعروف هذا يهرتي صحابته كسميين وكأمس النبي ومد معناها كمربين عمل كاسن الدين بنقونيا يسوون عباده نقونيا سنة نقونيا لأن النبي أقر عليه الصلاة والسلام maalinkiina masjidka nabiga iimanayeen oo saasay nabiga afkiisa iyo ficilkiisa ay ka qaadanayeen diinta islaamka habeenkiina martidooda aqalada ku celinayeen aqalada man yudifu hadhihi al-laylata la ya'khudha kullu rajulin biyadi jalisihi ba nabigu maalin warnin walow martida masjidka joogta caawa intaad ka qaadi karta ka qaado aqalkaaga ku soo marti qaad rasuulku yiri inuu keenaka jamaacada masjidkeena iimansana uma eegay
nin ilaahay diinkiisa u socda qiimuhu leeyahay garan mayna maanta yaa reeyta dadka xaafadu hadday garan lahaayeen jamaacadada qiimaha ay leeyihiin iyo qadarka ilaagtiisa ay ku leeyihiin dhulka inay ku socdaan uma ogolaadeen kharajuu bi amwaalihim wa anfusihim Abu Talha radiyallahu anhu dayfkiisa gacantu soo qabtay markaa buu nabiga u keenay calayhi salaatu wasalaam waaba qosnay nabigu wuxuu ku yiri laqad ajiba Allahu min sani'ikuma bi dayfikum al-laylata ya Aba Talha buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xalayto la dayfkiina ninka martida ni'a saad u qabateen u maamuusteen ilaahay bar ali ka noqday buu rasuulku yiri waa habeen kaliya adkaysteen qoyskaasi ciyaalkii cunto la'aan baa lagu jiifiyey oday islaantiina way qadeen ciyaalkiina way qadeen iyo dhergiyeen warayay dhergiyeen dayfkoogii bay maamuuseen ay martay soor siiyeen hal habeen faqabuliyadu waqti yar oo qofku hadduu ikhlaas ku bixiyo ilaahay ka aqbalaya ayaa jirta بدر بي صحابته جوكسدين غزوة بدر والله أقبل رقي بدر جوكسدين والله أقبل بدريين بالليل خلاص واحد دون تاس سماية بو نبي قول دين بيجيني ولا دافع بمعنى نك بدري قبال ليريها حدي وما ركتاني وقف وكدعنا خاتمة يسوى كحول تاين ودين تحسوين وكاكسون هذا توبت كانون لماذا؟ لأن مالين بيستاجين مالين حق ما ركتاني إن لسكت تاجو أي غريب أي هيد بيستاجين النبي أكتس عليه الصلاة والسلام ده قالكم إيش وتلقلين عير قريش بيوي ما دليل الإحصادان ولكن إلى هاي سفر كنا مالك مريي أبا سفيان عيدا وأبو جهل عيدا وترى والله قهر كاني dagaal ay ku tala galin baa yaa ku qabsaday marka uu nabigu tala weydiiyay saxaabadiisii sheeruli shaygan u soconay waa shay kale aradna shay'an wa arada Allah shay'an akhar ba nabigu inaku siban damacsanayno waxaan u soconay ciira qurayshnan qaadano ilaahayna azza wa jalla sidan u damacsanaaye maxayna la tahay keenay buu taladiina ka tala bixiya waa ciidan kunnin oo maaragtana dagaal ku soo tala galay ba hor jooga ayaakuna waa 312 nin xataa gaashaankii lagu dagaalamayay saafihii iyo wixii dagaal loogu tala galo dhan kuma soo tala galinba wayba lugeynayaan badankooda aqdaam weeyaan saaf ma wataan ولكن إلهي بقدري تربية سعودة حا سعودة ورمعا سعودة إلهي بتربية دي سنة قال دس يا إيمان كوغا مشاهدات كايا لقد حصار يا مغيبات كان لقو حريا مغيبات مشاهدات كو waxaan arkayno weeyaan raga nabiga badar maalinta la joogsaday mushaahadaadka laga saaray noloshooda khalaas qaybkay ku xidhmeen abdow waxay dhiibteen istidaad aan caadi ahayn way raga meesha marayay 200 ansaar bay u badnaayeen bal ansaar nabiga kulamay ballamin inuu nabiga ay dagaal la qaadaan waxay baycadu ahayd bal hadii nabiga la soo weeraro inay ka difaacayaan cadowga soo weeraray difaac bay ku ballameenahay duulaanku may ballamin ballanku muxuu ahaa hay difaac sida ubadkayaga iyo xaasaskayaga cadowga aan uga difaacno ayaan ku ballan qaadanaa hadaad madiina noogu timaadeen anaguna ku difaacin ballanku sidaas u ahaa عمر بن الخطاب الرأي ديبت الله رالي كان نقض مركب النبي يقول فريسو صحابة مركب النبي يقول رقي ودوني مركب سعد بن معاذ بس ركعي أنا كان نوجد ملها بوكين مركب النبي يقول ها هذا النبي يقول أنصار بوجدا مهاجرين مياه
muhaajiriin iyagu way ku soo talagaleen inay dhintaan marka horeba waayo dadkoogii iyo dalkoogiiba makaa looga haystaa makaa lagu haystaa askuumid iyo ka noloshii dhimashadu laakiin raggan weeya raggu nebigu doonayo inuu ogaado isticdaadkooga annakaad noo jeedaa nebi allow inaan u malay ninkaan nii jeedaa ra'yigiina keena annaka miya ahaa halkaad martaba oo kula marayna annagu haddaad tiraa baddaa ila gala waa kula galaynaa barkalqaamaad haddaad tidhahda ii raaca waa kuu raacaynaa xoolaha yagaan haysanno haddaad in naga qaadood in noo dhaafto intaad naga qaadatay ee diintaada aad ku bixisay ayaanu ka jecel lahay intaad noo dhaaftay ku yidhahdeen reer banu israa'iil nebi muuse waxay ku yidhaahdeen idhab anta warabbuka faqaatila inaa haahunaa qaaciduun bay ku yidhaahdeen annagu ku odhan mayna sidaa waxaan ku leenahay adigiyo rabbigaad socda annaguna macaynaan ho dagaalka waa nala galaynaaye